السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على كسور دو مركورة channelka ka hor ka mid qaas qaabta ku xiran channelka maanta waxaan ka sheekeyn doonaa qiso ku deeshay cabir qaadasho mudan. Xamse waa wiil kaasoo leh akhlaaqdeeda fadliga badan. Waxaa ku soo barbaaray qoys faqiir ah asaati taasiraad kuma yeelan ku biiridiisii kulliyad caafimaadka. Waxa uu ahaa mid inta lagu guda jiro fasaxa xagaaga ee sanad walba iibiyo alaabta guryaha dhexdooda si uu iskaga bixiyo lacagta waxbarashada. maalmaha ka mid ah intuu ku guda jiray iibinta alaabta mid ka mid ah tuulooyinka, isagoo dhex socda ayaa waxaa qabatay gaajo. jeebkiisa kama helin cunto amba waxa uu ku iibsado cunto. waxa uu go'aansaday in uu dalbado cunto yar guriga ugu horeeya ee uu soo maro. markii uu albaabkii garaacay waxa uu u xishooday naftiisii markii ay ka furtay albaabka gabadh yar oo qurux badan. waxa uu ku bedeshay inuu ka dalbado cunto inuu ka dalbado biyo. markii ay dareentay gabadhii inuu gaajoonayo waxa uu keentay koob caano ah iyo xoogaa cunto macaan ah. Xamse waa uu cunay wuuna cabay. waxa uu dareemay in uu dhargay. kadib waxa uu weydiiyey gabadhii, maxaan kuuga abaalgudaa? waxay tiri gabadhii, waxba ha iigu abaalgudin. waxayna bartay hooyaday in aanan ku qaadan lacag sameynta ficilada khayrka ah. Xamse waa uu mahadnaqay ka dhaqaajiyay meeshii. markuu kasoo tegay gurigii waxa uu dareemay in iimaankiisu kordhay. waxa uu xasuustay xadiiska rasuulka sallallahu calayhi wasallam: axabu nnaasi ila allahi anfacuhum linnaas وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرر يدخل على المسلم أو يكشف عنه كربا أو يقضي عنه دينا أو يضرد عنه جوعا. waxaa kasoo wareegay sanado waxa uu noqday Xamse dhakhtar ugu caansan caasimada. gabadhii waxaa haleelay xanuun kadib markii ay guursatay. waxaa la keenay dhakhtarkii ugu weynaa caasimada. waxaa loo yeedhay dhakhaatiirtii ku takhasustay waxa hayay xanuun dhif iyo naadir ah. waxaa loo yeedhay Dr. Xamse. markii uu maqlay magaca tuulada ay ka timid gabadhu waxaa isbedelay indhihiisii iyo dhammaan wejigiisii. waxa uu cararay dhismaha dabaqa ugu hooseeya ee uu ku yaalo qolka ay gabadhu ku jirto. markii uu arkay gabadhii waa uu gartay. kadib waxaa kusoo noqday xafiiskii. waxa uu joojiyay hawshii uu hayay oo dhan si uu u badbaadiyo gabadha nafteeda. laga bilaabo maalintaa waxa uu siiyey ilaalin khaas ah iyo weliba dadaal keliya. kadib dadaal badan iyo shaqo adag kadib way caafimaadday gabadhii weliba gacanta Dr. Xamse. waxa uu dalbaday Dr. Xamse in loo keeno biilkii amba lacagtii warqadii biilka amba lacagta gabadha. xagga dambe inta uu rogay warqadii ayaa wuxuu kaga qoray qoraal. waxa uu diray warqadii qolkii gabadhii bukaanka ahayd. gabadhii waxay ahayd gabadha bukaanku mid ka baqanaysa furitaanka warqadda, waayo waxay ogeyd nolosheeda inta ka dhiman inay ku qaadan doonto si ay u bixiso lacagta. cabsi iyo baqasho kadib waxay eegtay gabadhii warqadii. waxay heshay wax xagga dambe kaga qornaa: waxaa kaa guday lacagta cunto fudud oo macaan. daqiiqada kadib waxaa soo galay Dr. Xamse. waa uu qoslay. kadib waxa uu xasuusiyey maalintay siisay cuntada isagoo arday ahaa ku iibiyo weliba tuuladooda dhexdooda. gabadhii way oyday farxad awgeed. qalbi faraxsan ayay tiri, ilaahay ayaa iskala mahadda igu siiyey jacaylkan iyo raxmadan markuu ii soo diray dhakhtarkan cajiibka ah si uu ii daryeelo aniga daryeelkan oo dhan. ilaahayna wuxuu yidhi: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Please type a like. That can see video
please taabo subscribe si aad noogu xirnaato mahadsanid.